الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaad dabcan dadka Soomaaliyeed iyo umaduhu ay wada dhageysteen khudbadii madaxweynaha runtii waxaan rabaa inaan halkan ka sheego 3 sano ee barkii la soo dhaafay madaxweynaha wixii laga sugayay ee ahayd inuu dalka ka qabto 3 arrin oo asaasi ah ugu muhiimsanaa midna waxba laga qaban qodobkii koowaad wuxuu ahaa in madaxweynuhu uu shaqo ka qabto dastuurka dalka waxaad ka wareysaan in dastuurkii dalka uu sidiisa qabyo u yahay kii ku meel gaarka ahaana uusan madaxweynuhu inuu ku tunto ma ogiye uusan maalin gelinkeedna ku dhaqmin qodobka labaadna wuxuu ahaa in ciidamo isku dhafan oo ciidamada qalabka sida la dhiso oo heer dawlad goboleed iyo heer federaalba looga heshiiyey ayadana madaxweynuhu muddadii la soo dhaafay wuxuu ku mashquulsanaa ciidamo habeenkii airportka aadacada laga dhoofiyo habeenkii laga soo dejiyo habeenkiina howlgala Eritreana lagu soo tababaro asagoo iska baalmaray sharcigii lagu la soo heshiiyey London ahaa in ciidanka qaranka lagu dhiso runtii ayadana ayaan darro kale weyn oo dalka Soomaaliyeed haysata weeye qodobkii saddexaad oo madaxweynaha laga filayay wuxuu ahaa doorasho heer federaal ah oo loo dhan yahay in la qabto madaxweynuhu 2020 ayuu wuxuu ku soo baraarugay in waqtigii ka dhamaaday asagoo intii hore ka fakarayay sidii doorasho marin habaabina uu dadka uga dhaadhicin lahaa doorashadii marin habaabinta hadda markii socon weysana madaxweynuhu wuxuu ka shaqeeyaa sidii uu extension u heli lahaa ama waqti ugu darsan lahaa khudbadiisa maantay waxa aad iyo aad uga muuqatay beer la xawsi ku saabsan xildhibaanada madaxweynuhu hal maalin baarlamaanka ma ixtiraamin hal maalin xildhibaanada ma ixtiraamin hal maalin uma soo laaban hal maalin go'aankooda uma baahanin ama ma tixgelin inuu maanta Dhuusamareeb ku shardiyo yiraahdo wixii Dhuusamareeb ka soo baxa ayaan keenayaa baarlamaanku wuxuu eg yahay doorashadiisa laga wada warhayaa November heshiis siyaasadeed ma ogiyo wax kale oo looga gudbi karaa ma jiraan heshiiska siyaasadeed wuxuu yaalaa Dhuusamareeb madaxweynaha waxaan u sheegaynaa inuu Dhuusamareeb tago hadda suu sheego waa u socdaahe heshiiska dadka Soomaaliyeed iyo madaxda dawlad goboleedyada iyo matalayaasha siyaasadeed ee halkaas ay tagaan ummadda u soo qaado wixii intaas ka soo haraa waa iska warbadi iyo beer la xawsi iyo waqti kororsi cid yeelaysana ma jirto aad iyo aad baa u mahadsantihiin